hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo khudbad ka jeedinayay kulan uu yeeshay xisbigiisa AK oo ka qabsoomay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu dagaal la gali doono kooxda Kurdiyiinta ee Ciraaq isla markaana uu ka saari doono ilaa bariga Ciraaq. Madaxweyne Erdogan waxa uu carabka ku adkeeyay in ciidamada dalka Turkigu ay tagi doonaan magaalada ay gacanta ku hayaan kooxda Kurdiyiinta ee lagu magacaabo Manbij, taasi oo dhalin karta inay iska hor yimaadaan Mareykanka. Çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil. Oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Magaalada Manbij ayaa saldhig u ah ciidamada Mareykanka iyo kooxda Kurdiyiinta kadib markii ay ka saareen kooxda isku magacaawda dawladda Islaamka ee Daesh sanadkii 2016. madaxweynaha dalka Turkiga ayaa kulanka xisbigiisa waxa uu ka sheegay inuu diyaar u yahay howlgal kasta oo lagu baabiinayo kooxda argagixisada ee ku sugan wadanka Ciraaq, iyadoo Turkigu uu bilaabay howlgalka uu kula dagaalamayo kooxaha Kurdiyiinta toddobaadkii hore. Xukuumadda Turkiga ayaa doonaysa inay magaalada Afrin ka saarto kooxda Kurdiyiinta ee YPG. Turkiga ayaa sheegay inay YPG tahay group ka tirsan ururka PKK ee ka dagaalama gobolka Kurdiyiinta ee dalka Turkiga, waxaana uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso, balse YPG ayaa beenisay inay xiriir toos ah la leeyihiin ururka PKK.